السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قول دركستا قلب جبكستا خسارة كستا waxaa ku jiro abuur u gaar ah dirsi u gaar ah oo ku saabsan sida loo hormariyo waxqabadkaaga marka xigta mar walba bilowga koowaad waxaad noqon doontaa qof la kulma fashil aad iyo aad u weyn waxaad u baahan tahay inaad noqotid qof guuleysta waxaad u baahan tahay inaad noqotid qof ka mira dhaliya waxyaabihii uu u soo daalay u soo rafaaday waqtiga badan ku baxshay waxaad u baahan tahay inaad noqotid ruux bulshada ka dhex amaanan haddaba sidee ku helaysaa waxaad ku helaysaa inaad noqotid qof dulqaad leh sabir leh karti leh adkaysi leh dulqaadka waxaad ku helaysaa in waxyaabo badan aad ka mira dhalisid oo noqotid qof waxyaabo badan u hirgalaan geesinimada iyo adkaysiguna waxay ku baraysaa in wax walba aad ku dhiiratid geesiga dhabta lagu sheega waa qofka asiga oo shay walba xiran yahay la leeyahay maya tijaabiyay waxaan aaminsanahay geesiga dhabta inuu yahay qofku markay wadadu ka xirantay isku day sida wadadaas ku furan lahaa mar walba oo aad ku dadaashid horumarinta naftaada waxaad la kulmaysaa caqabadooyin badan waxaad la kulmaysaa waxyaabo badan oo isdiidan noloshaadu sideedaba maahan mid mar walba iska active gareysano mar walba hoo ahelaysid waxaa laga yaabaa inay ku soo maraan sanado badan oo negative ah positive dhan aad helin macnaha maya ku helaysid waxaa laga yaabaa in wax ku soo galeen waxaasna intaadan dantaada ku fushan ay ka khasaareen waxaa laga yaabaa inaad helashay jaranjaro midda oo ku gaarsiinayso wadadii guusha balse aad aqooweyd qaabka u kori lahayd muddo ka bacdina aad barata qaabka loo koro balse markaan ma haysid jaranjaradii waayo jaranjaradii muraa ay jabtay waqtigu shidiisa maahan mid iska cayiman mar walba iska diyaarsan fursadu way ku soo martaa way ku dhaaftaa mar walba fursadu way jirtaa yaan laga dhaadhacinin fursadi ma jirto markaan mar walba waqti walba xaalad walba fursada jirto ruuxdaada inta ay jirto jirkaaga ku jirto oo dhaqaaqaysid fursad ayaa haysataa ilaahay subxaanahu wa tacaala adoonkiisa markuu gacmaha u horsado ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka xishooda inuu adoonkiisa oo gacan maran ku soo celiyo ma ogtahay arsaaqadaada allaahii qoray kaama tegin mar walba kula joogo ka warhaya saajaligeed fursadaada iyo noloshaada asiga maamul asiga haya wax walba oo ku soo marayaan asiga ayaa go'aaminaya asiga ayaa og sidii ku soo marayaan waxa loo baahan yahay dulqaad iyo karti iyo adkaysi waxaad u baahan tahay dhowr shay maxaa kamid ah kow dulqaad 2 adkaysi 3 dhiiranaan 4 isku day 5 joogteynta shaygaas inaad shaygan joogteyd ku dadaal laazim waa inaad mar walba ku day tusaale ahaan dad waxaa arkaysaa shay ay bilaabeen sanado ka hor muddo ka hor laakiin ilaa hadda aan ka miro dhalin waxa adiga jadwalka noloshu ma ahan maanta iyo biri Allah subhanahu wa ta'ala ayaa og adiga maalinkii noloshaada gabagaboobay sida darteed mar walba noloshaada yeeso noqonin mid lazy ah iska ilaali lazinimada iyo caajisnimada waayo cadawga ugu weyn aad leedahay waa naf iyo shaydaan iyo caajisnimada caajiskana waxaa keena rabitaanka waxyaabaha yacniga jooji qaado furaha noloshaada oo adigu ku furo meel walba iyo albaab walba naftaada iyo nafteeda waxaan u dardaarmaya alla ka cabsiga hada billahi tawfiiq wassalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh